isbeddelka Salvador kahor iyo kadib markii ay heshay hogaamiye dhab ah. Salvador waa wadan mar la qabsaday rabshado, musuqmaasuq, gacan ka hadal iyo burcad. Good evening, and tonight we take you inside one of the most dangerous countries on earth, a place where criminal gangs control entire neighborhoods. And these gangs from El Salvador are now operating in nearly every corner of America. Families on both sides of the border caught in a toxic cycle of violence. It's a special edition of Nightline, Gangland. It's the middle of the night in the murder capital of the world. Something's going on in the area. We're in El Salvador on patrol with armed to the teeth cops. Hal mar ayuu waddankiiba isbedelay kadib markii uu yimid hogaamiye dhab ah, Nayib Bukele. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo. Haddaba waddanka Salvador waxaa caan ka ah laba kooxood oo gaangis ah. Labadan kooxood ayaa waxaa la kala yiraahdaa MS-13 iyo 18 Street. Labadan kooxood haddaba waxaa ka dhaxeeya dagaal ayaa dhexdooda ka dhaxeeya, waxaana la sheegaa labadan kooxood in 2010 ilaa 2020 inay dileen 40,000 oo qof. Xitaa heer waxay gaarsiiyeen waddanka Salvador in la yiraahdo caasimadda dilka. Haddaba kooxahan gaangiska ayaa awood badan waddankan ku lahaa ilaa heer kooxda la yiraahdo MS-13 ay gaadhay awoodeedu waddanka Mareykanka, gaar ahaan gobolka la yiraahdo California ayay awood badan ku leedahay. waxaana jira marar badan isagoo madaxweynaha Donald Trump markuu madaxweynaha ka hadlay kooxda MS-13 in gobolka California awood badan ku leedahay. For too long, Washington has gone after law-abiding gun owners while making life easier for criminals, drug dealers, traffickers, and gang members. MS-13, you know about MS-13? It's not pleasant for them anymore, folks. It's not pleasant for them anymore. That's a bad group. 2015 dowladda Salvador gaar ahaan qaybta la yiraahdo National Civil Policy waxay sheegtay 80% dadka la dilo waxa dila gaangis. 2015 sidoo kale dowladda Salvador waxay soo saartay in la dilay 6656 qof in gacantooda ay ku dileen kooxahaas, sidaa daraadeedna loogu bixiyay caasimadii dilka. 2014 ilaa 2019 300,000 oo Salvador u dhashay ayaa waxay isaga yaacay waddankoodii iyagoo ku galay Mareykanka qaxoonti ahaan, iyagoo kana cararayay gaangiska waddankii qalalaasaha galiyay. Soo bixitaankii ninkii tartiir lahaa gaangiska Nayib Armando Bukele. imaatinkii hogaamiyihii dhabta ahaa ee Nayib Armando Bukele. Nayib Armando Bukele ayaa wuxuu ku dhashay Salvador 1981. asalkiisuna ninkan waa Falastiini, aabihiina wuxuu ahaa nin ganacsada oo warshado iskale. Haddaba 2011 Nayib wuxuu go'aan ku gaaray inuu siyaasadda ku soo biiro. Haddaba 2011 Nayib wuxuu ku soo biiray siyaasadda waddanka Salvador, waxaanu markiisii u horeeyay uu maayir ka noqday magaalo la yiraahdo Nuevo. waxaanu magaalada maayir ka ahaa ilaa 2015. wixii intaa ka dambeeyay 2015 waxa loo doortay magaalada San Salvador oo ah caasimadda waddanka Salvador ilaa 2018 ayaanu caasimadda ka ahaa maayir. Haddaba 2019 Nayib wuxuu u tartamay musharax madaxweyne isagoo iska soo sharaxay xisbi la oran jiray Grand Alliance for National Unity, isagoo la tartamay laba xisbi oo aad u waaweynaa. Marka loo eego xisbigan iska soo sharaxayna wuxuu ahaa xisbi aad u tamar yar, labada xisbi kalena waxay laba xisbi aad u waaweynaa. labada xisbi mid kamidana waxa ka sharaxnaa madaxweynihii xilliga. labada xisbi markaa la tartamay Nayib waxay kala ahaayeen National Republic Alliance iyo Front National Liberation Front. Haddaba labada xisbi Nayib wuxuu kaga guuleystay codkii 53%, isagoo sida 2019 ku noqday madaxweynihii 18aad ee waddanka Salvador. Haddaba Nayib waxa xilka loo dhaariyay 1 June 2019, 20 cisho kadib markii uu kursiga ku fadhiistay. wuxuu la yimid qorshihii uu kula dagaalami lahaa gaangiska,
isagoo markiiba amar ku siiyay ciidamada militariga inay gudaha wadanka Salvador soo galaan gaangiskana la dagaalamaan isagoo amar ku siiyay ciidamada militariga inay wadooyinka maraan xaafadahana iyagu lugahooda ku galaan haddaba fayskii koowaad Nagiib wuxuu diyaariyay 4,000 oo ciidamada militariga iyo 2,000 oo ciidamada booliiska ah si ay ula dagaalamaan gaangiska haddaba Nagiib wuxuu soo saaray sharciyad la yiraahdo Super Mano Duro sharciyada ayaa sheegaysa ciidanka militarigu inay qof allayaal qofkay doonaan baari karaan iyagoo haddii ay muuqaalkiisa uga shakiyaan inuu gaangis yahay maadaama gaangisku inta badan ay wajiyadooda iyo jirkooda ku sawiri jireen tattoo haddana 2022 Nagiib wuxuu soo saaray wuxuu geliyay wadankiiba state of emergency haddaba March 2022 wuxuu Nagiib wadanka Salvador geliyay xaalad emergency ama state of emergency isagoo ciidankana amar ku siiyay in qof allayaal qofkay doonaan xiri karaan iyagoon wax waaranaba maxkamadda ka soo goosan haddaba sharciyada markuu Nagiib soo saaray 2023 dawladda Salvador uu Nagiib hogaaminayo waxay xidhay 70,000 oo qof oo gaangis looga shakiyay qaarkoodna gaangisa sidoo kale Nagiib wuxuu soo saaray xeelad cusub oo qofka gaangiska si aanu ugu noqon xaaladii hore marka xabsiga uu ka soo baxo wuxuu soo saaray xeelad cusub oo ah qofka marka la xiro in aanu dib oo dambaysa uga soo bixin xabsiga haddaba Nagiib xeeladiisaas way u shaqaysay waxaana la sheegaa 70,000 oo maxbuus oo gaangisa inuu xiray waxaana sidoo kale la sheegaa daraasadii u dambeysay ee sanadkii hore 2023 markii la soo saaray halka maanta amnigu taagay wadanka Salvador oo lagu sheego 8% kaba amni badnaayeen laba wadan oo ahaa Singapore iyo wadanka Kuwait waxaana sidoo kale daraasadu sheegaysaa dilka heerka uu marayo Salvador 2021 8% buu marayay 2022 hoos buu dhacay wuxuu marayaa 7.8 2023 wuxuu marayaa 2.4 ama 2.4 haddaba Nagiib kuma deeyin gaangiskii maxaabiista ee uu ka shaqeysiyay isagoo magaalooyinka u diray iyagoo nadiifinaya khashinka guraya goobaha dadweynaha ka shaqeynaya iyagoo qaarkood muusiga ku garaacaya goobaha dadweynaha haddaba ninkan hogaamiyaha maxaa laga baran karaa isagoo wadankiisa ka soo kaxeeyay 100,000 qof 103 qof kamid gaangis bay ahaayeen wuxuuna soo gaarsiiyay 100,000 qof in laba kamid imika gaangis yihiin isagoo wadankiisa loo oran karayo horumar weyn buu gaarsiiyay haddaba ninkan maxaa cashar laga qaadan karayaa